الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آية وحي تلماميسا إلهي سبحانه وتعالى النبي سأيو الله أطلي وحاكتر هذا النبي الله محمد وأضوام ضيدا دنبيada badan sameeyay oo naftooda ku xadgudbay oo ku gabood falay oo macaasi naftooda u kasbay waxa ku tiraahdaa la taqnatu min rahmatillah ilaahi subhanahu wa ta'ala naxariistiisa haka quusanin maxaa yeelay inna allaha yaghfiru dhunuba jamii'a dambiyada dhammaantood ilaahi waa dhaafaa dembi ilaahay uunan dhaafin ma uu jiro shirki iyo gaalnimo ayaa dembi la gala ugu weyn asagana haddii qofku ilaahay uga laabto ilaahay waa u dhaafaya subxaanahu wa tacaala waa nidaa yeerid loo yeeraya addoommada dembaabay la leeyahay dembi kastoo aad gasheen إلهي دنبي أو دنبو دافا إلهي أصول لابطة إلهي سبحانه وتعالى دم داف ويديسته والذين دافيا إلهي سبحانه وتعالى وحو قدر إنسانك إنه دنبي كدعو ولو قدر أو النظيف أهاني ولقو قدري وأنا كنت ريرسان عيسى إن لو قدر إنه دنبي كدا عنا إلهي حكم أيوك اللي حكم كاس واوي وحا كمد أدون كان مركو دنبي كدا إنه أقاده الله غفور الرحيم والغفار وهدو الله بتأضاف يا إنه تشو ولذلك النبي قالنا عليه الصلاة والسلام وحول يا والذي نفسي بيدي إلهي وحان كدارت نفتيدو قعنتي ساي كجرتي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون هدينا دنبابي لهين ودنبي قال ليدين قدري أوصل إذا كما دعلا ليدين قدرين با وإن الدنبي كد عدين إلهي وإذا كحين الله ولجاء بقوم يذنبون قوم إلهي وحو الله إبان لها دنبقوا كدعها يؤ دنبابية فيستغفرون إلهي مركا دنب داف ويدي سنة وإلهي مركا سوق دافي ومر لهلا واللهلا يا أضوم الدنبابة إلهي بقى قدري الله بنيا هي مقع إلهي بقى أتاقن الغفار الله دافد بضل وإن يتشران أضوم الدنبابة يا الله دافي ما هن معناه هذا إلا جوجو بورينا ينتهي دنبوديت كبعد الله ما هن هو حلقوا شيء يا خلق كان أبو رستي إلهي أبو ري وح إلهي أقدري وإن يدنبجوا وكدعها يوم بامك رحمة الله وفري النبي يقول حديث كلا كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك لا محالة ابن آدم ولو قدري قيبته كل هاي الزنا ده وانا قاريا وهليليا لا محالة شكيكم مجر مركز النبي يقول الشيء قاب كاس كأن عنده وزني سنيان وأفيرة دقيه وزني سنيان ومقلك لسانك وزني سنيان وهذلك قبشدي قفوا قعنته وحقوق بنا يوزندي لوكتي زندي بأصع عنيسا كواس أردن زندي غيب كم إذا أيين نقنا يان مركي وحويان للا هذا دنعهم مركز النبي صلى الله عليه وسلم والقلب يهوى ويتمنى اسكدا وحكى لقلبك أيان نيسان يا شهودي دمعها يا أو تمنينا يا أو تعلانا يا وحي حما قلبك ما طمعي قليا يصدق ذلك الفرج ويكذبه مركا قدام بينا وحا أرمينا يا أما بيننا هيا وفرجي هدو انت أصبرك صومرك بعد يقدبه وحويان زندي حقيقة هيدا وينيد ودحتاجين لكن انت كهر رئيسي وحويان
kuwan waxaa lagu tilmaamay inay zinaysanayaan zinaduna ay ka dhacayso waana loo qadar bal nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama kullu bni aadama khataa ma ka bixi karo ibnu aadan dhammaantiis waa gafaya maxaa la raaciyey wa khayru lkhataa'iina atawaabuun kuwa gafana waxaa ugu khayr badan inta gafaysa gafka waxa weeyaan kuwa noqonayo ilaahay u toobad keenayo ilaahay u laabanaya kuwaasaa la doortay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu rabaa wuxuu nebigu yidhi maa min cabdin mu'min ilaa walahu danbun yactaaduhu alfaynata bacda alfayna qof kasta oo mu'mina ma jiro ilaa wuxuu leeyahay dembi oo caado u leeyahay oo ku laalaabanayo oo ka dhacay kala duwan ayuu leeyahay wa ina almu'min khuliqa mufattanan tawaaban nasaa'an idaa dukira dakar waxaa la abuuray qofka mu'minka ah isagoo ah mid waxa weeyaan fitno badan oo mid la fitnaynaya ah oo halmaan badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala iloobahayo halmaamaya tawaaban ayaa la abuuray mid toobad laabasho badan isagoo ah oo ilaahay u laabanaya mar walba waa la abuuray idaa dukira dakar haddii la xasuusiyo oo la waaniyo qofka mu'minka ay waantoomaya ilaahay buu u laabanayaa marba dembigii baa ka dhacahaya wuu laabanayaa wuu ka dhacahaya wuu laabanaya haddii marka dembigii iyo macaasidii insaankii inuu ka dhaca loo qadaray oo marnaba aan laga fakanahayna qofkii wax ka dhacayaan ilaahay raxmaddiisa iyo fadligiisa waxaa ah baabkii istikfaarta ayaa la ballaqay oo naloo furay galab iyo subax buu furan yahay habeen iyo maalin buu furan yahay bad iyo biri buu ka furan yahay meel kasta ayuu ka furan yahay baabka istikfaarta waxaa loogu naadinayaa dadku inay u laabtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keenaan aynu dhaqan iyo caado ka dhiganno inaynu maalinkii iyo habeenkiiba ku dadaalno inaynu isbarno istikfaarta iyo toobadkeenka inaynu ku celcelinno isbarno اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار